ملهي إذا بيا لوريا إذا ملهي إذا كنا واياي أنا مدعي ما الله مش معي وريا إذا بيا لوريا وصغير ولا رسول كفرت ويل كان وويل كي أنا قاعد علي رفاض يدبان كوكبا ومدة واحد كارن إيكوي ويسي كهرسوي سواء سجع عيال توريد قولي ستة أو هبي ما لقناه ولا لقنا هرسوي واسجع وادلاقي uguweynaa ee ciyaal weerada oo gacanta dawladda lagu soo dhigay waxaana uu doonayay inuu aabihiisa dilo ciidamada ayaa ka soo gaaray inta uusan aabihiisa nafta dhaafin hadaba dilaagan meeqo qof ayuu horay u soo dilay ayaan warbixintan kuugu soo gudbin doonaa daawade balse marka hore waxa si xushmad ku jirta kaaga codsanaya daawade inaad muuqaalkan like taabato kanaalkeenana subscribe taabato oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu wehliya baraha bulshada si aan mar waliba kuugu soo gudbino xogtii ugu dambeysay ee ka jirta dalka iyo dibadda waxaan ka codsanayaa inaad subscribe taabato oo aad gambaleelka furato ملهي إذا بيا لوريا إذا ملهي إذا كنا واياي أنا مدعي ما الله مش معي وريا إذا بيا لوريا وصغير ولا رسول كفرت ويل كان وويل كي أنا قاعد علي رفاض يدبان كوكبا ومدة واحد كارن إيكوي ويسي كهرسوي سواء سجع عيال توريد قولي ستة أو هبي ما لقناه ولا لقنا هرسوي واسجع degmada Kaaraan xalay waxa lagu soo qabtay dilaagii ugu weynaa ee ciyaal weerada ee magaalada Muqdisho isagoo rabay in uu xilligaasi nafta dhaafiyo aabihiisa isaga dhalay waxana uu dilalka u adeegsan jiray dilaagan ama hogaamiyahan weyn ee ciyaal weerada ee caanka ka ahaa degmada Kaaraan in uu qoorta kaga gooyo baangada ama seefta sidaad u taqaano waxana xilliga ay gacanta ku soo dhigayeen ciidamada dawladda oo xilligaasi gacanta ku haystay baangad ama seef uu doonayay inuu adeegsado dilka aabihiisa isaga dhalay degmada Kaaraan ayaa ka mid ah meelaha ay sida weyn ugu badan yihiin ciyaalka weerada waxayna halkaasi ka geystaan dhibaatooyin aad u weyn oo ay ka mid tahay dilalka dadka shacabka iyo sidoo kale dhaca loo geysto xilliyada kala duwan haba ugu badnaatay xilliga habeenkii ah iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho laga sameeyay howlgallo kala duwan kuwaasi oo lagu baacsanayay ciyaalka weerada oo dhibaatadii ugu weyneed ka geysanayay magaalada Muqdisho Kaaraan iyo wadajir oo ah degmooyinka ay sida weyn uga geystaan dhibaatooyinka kala duwan cabashadii ugu weyneedna ay ka imaaneysay degmada Kaaraan ayaana waxa horay loogu soo qabtay ciyaalka weerada ee loo yaqaan gangiska oo xilligaasi dhibaatooyin waaweyn ka geysanaya degmada sidoo kale waxa jira degmooyin qaar oo ay ka mid tahay degmada Dayniile oo si weyn ay uga cabanayaan dadka dhibaatooyin ay u geysanayaan ciyaalka weerada balse waa mid ka mid ah dadkii ugu weynaa ee ciyaalka weerada soo aas-aasay degmada Kaaraan kaasi oo muddo ka dhuumaaleysanaya ciidamada dawladda dhibaatooyinka uu geystayna aysan tiro lahayn aabaha dhalay hogaamiyahan ciyaal weerada ayaa sheegay inuu wiilkiisa qaati ka taagan yahay dhibaatooyinka uu ka geysanaya ay yihiin kuwo aan xad lahayn sida dilalka iyo dhaca waxana uu sheegay in isaga naftiisa uu kala baqayo oo uu doonayay inuu isaga dilo aabaha ayaana waxa uu ku wareejiyay hogaamiyahan ciyaal weerada ah saldhigga degmada Kaaraan waxana uu waramay warbaahinta ملهي إذا بيا لوريا إذا ملهي إذا كنا واياي أنا مدعي ما الله مش معي وريا إذا بيا لوريا وصغير ولا رسول كفرت ويل كان وويل كي أنا قاعد علي رفاض يدبان كوكبا ومدة واحد كارن إيكوي ويسي كهرسوي سواء سجع عيال توريد قولي ستة أو هبي ما لقناه ولا لقنا هرسوي واسجع وركجوك لقن توسواجي مركز دم بالعماء أبيكم كسووريجي وحلاقي قبته عدي أبيك أو حقباي وحقي قبلي واتهاي ما أنت محط سوق قبته مركز سوق قبنيس حد وحن فلا سوق جرا سوق قبته هي محوة مركز مقروتي كعنتي سوق كويس سواء كان برا سوق هذا ضد دباتي إيو ضد واحد بدنا هرو رقي واد داله مركز ويا برشة الصوماليات قارهان أبياش الصوماليات دقمة كاران جو
ملهي ادب يا لوريا ادب ملهي دان كنا waayahay انا مدحي ما لا مش معبيستان وريا ادب يا لوريا okay وصغاي ولا رسول كفرت مدحي كافيدا كلها wiilkan waa wiilkii aniga dhalay rafaad iyo dhibaan ku qabaa ummadda wax kaaran ay ka hooyo weysay ka harsi weysay waa asaga ciyaal tuureeda qowleysatada ah oo habeen ma laga hooyo waa laga harsi waa asaga warka joog dhaqan toosin waa geeyay markii dambe laamaha amnigan ku soo wareejiyay waxa laga qabto hadii abriga uu wax qabay waxa iga qabay waa tahay maanta maxaad ku soo qabatay markii aad soo qabanaysa hadda waxaan ku fal soo ku jira soo qabtay haye muxuu watay markaas ma qaro watay gacantiisa ku haysta waa kan biraar ugu soo qaaday dad oo dhibaateeyay iyo dad wax badan hore u dhaqay waa daala markii waaya bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan aabayaasha Soomaaliyeed degmada Kaaraan joogo mahad Axmed gaasa leeyahay aniga ma fahamtay wiilkan waa wiilkii aniga dhalay rafaad iyo dhibaan ku qabaa ummadda wax kaaran ay ka hooyo weysay ka harsi weysay waa asaga ciyaal tuureeda qowleysatada ah oo habeen ma laga hooyo waa laga harsi waa asaga warka joog dhaqan toosin waa geeyay markii dambe laamaha amnigan ku soo wareejiyay waxa laga qabto hadii abriga uu wax qabay waxa iga qabay waa tahay maanta maxaad ku soo qabatay markii aad soo qabanaysa hadda waxaan ku fal soo ku jira soo qabtay haye muxuu watay markaas ma qaro watay gacantiisa ku haysta waa kan biraar ugu soo qaaday dad oo dhibaateeyay iyo dad wax badan hore u dhaqay waa daala markii waaya bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan aabayaasha Soomaaliyeed degmada Kaaraan joogo oo ciyaalkooda sidaan oo kale ay yihiin ciyaal weero maxaad u baaq u direysaa oo fariin ah odo walba unugiisa wuxuu yahay ogyahay sharciga hala socodsiyo hadii kale masaajid uu ku jiro ay yiraahdo toddobaad wuxuu yahay ادب ملهي ادب يا لوريا ادب ملهي دان كنا waayahay انا مدحي ما لا مش معبيستان وريا ادب يا لوريا وصغاي ولا رسول كفرت مدحي كافيدا كلها waayahay hadda halkeed ku sugan tahay degmada Kaaraan ku suranaa salli Kaaraan joogaad waana kana waxaan ku soo qabtay waayahay baashan gacantaada ku jirto waa midi ama baangad sida dadku u yaqaanaan yaad ka soo qaaday igaarkeyga ka soo qaatay wiil kale la socda xataa waa naga fakay anaguna midiyay way birtasan ka dhacay ma fahad waayahay adaa gacantaada ku keenay hadda ana keenay waayahay ummadda Soomaaliyeed ee ciyaalkooda qaarkood ay weerarada ku jiraan aabayaashaas maxaad ugu baaqaysaa aabayaal walba unugiisa wuxuu yahay waa ogyahay ee abniga hala socodsiiyo ninka qarsana wuxuu qarsadaa saa qarsaday waayahay maxaad ka rajaynaysaa booliska iyo saldhigga gaar ahaan degmada Kaaraan maadaama aad ku soo wareejisay laamaha amniga degmada Kaaraan maxaad ka codsanaysaa maxaad ugu baaqaysaa waxaan ka codsayaa ninkan ummadda dhibay inay ummadda ka qabtaan anigana nafta ii keenay inay wax ka qabtaan sharciga inuu wax ka qabto waa maasantahay haye magacaaga Cabdullaahi meeqa sano iska dhaf caadi waa maaha wax ma ka dhibayso مدحيga dabashtan haye magaca adiga Cabdullaahi meeqa sano jirtaa 20 sano jira 20 sano okay iska dhaf Cabdullaahi meeqa sano jirtaa 20 sano jira haye ciyaalka weerada meeqa sano aad ku jirtaa hadda adiga inta jirto inta ciyaalka weerada jiraan haye wax aad dhibaateysay ama wax adiga gacantaada ku dhibaateysay ama wax ciyaalka asxaabtaada ay dhibaateeyeen oo aad xasuusato